waa qiso dhab oo ka dhacday Yemen bukaan isbitaal ku jira ayaa ka sheekeynaya wuxuuna yiri maalin ayaa isbitaalka la keenay aad u cawaadaya laakiin waxa la yaabay ninkaas dadka soo booqanaya markay qolkiisa ka soo baxayaan ayagoo qoslaya ka soo baxaan dadka markay ka tageen ayaa u tagay anigoo cawaadaya adigana miigu maasanay ayuu yiri mayo walaal waxaad ii sheegtaa sababta dadkan ayagoo qoslay ugu soo baxayaan albaabka wuxuu ugu jawaabay neeyo hadda ku sheega sababta halka ku yimid adiga qosli doona waxa deganahay guri dabaqa habeenkii markaas seexanayo daaqadaha ma xirto waxa ku riyooday anagoo aakhira joogna dadka loo kala saarayo ahlu naar iyo ahlu janno waxa meesha taagan basas fara badan ay ku qoran yihiin lambar kala duwan marka dadka waa la xaadiranaya qof kastana magaciisa la sheegaya qofka ahlu janno noqdo waxa la leeyahay waxa raacda baska naarta 100 kiiloomitir baska jannada 50 kiiloomitir ayaa ku kala qoran magaciiga ayaa la soo gaaray waxa la igu yiri waxa tahay ahlu waxa raacda baska kotii saddexaad anigoo aad u faraxsan ayaa raadiyay baska kotii saddexaad oo ku qornaa markaa helana waan galay cabaar markaas socona waxaan arkaynay boorar ay ku qoran yihiin jannadu waxa idin kaaga dhiman 20 kiiloomitir aniga hurda ila tagtay waxaase ku soo baraarugo anigoo arkay boor ay ku qoran tahay naartu waxa idin kaaga dhiman 40 kiiloomitir aniga waan nahay dadkii la saarnaa ayaa weydiiyay war baska xagee u socdaa naarta ayaa la igu jawaabay waxa weydiiyay lambarka baska saarana waxa la igu sheegay 30 inuu yahay ilaa farxadii ayaa iga farabadatay nambaradii basaska ayaa isku qalday waxaana soo raacay baskii ahlu naarka tala ay ugu cadaatay war anigu ahlu janna ah waan soo qaldamay wixii baska saarnaa oo dhan ayaa igu qoslay aad baan u naxsanahay darawalka ayaa ku dhahay ii jooji wuxuu igu yiri baska hal meel oo kaliya ayuu istaagayaa waana naarta bidaxan fiiriyay waxa fadhiya shaydaan baskii oo dhan ana leegu qoslayaa waxa sameeyay ayaa garan waayay baskii naarta ayuu ku sii dhawaanayaa mar kaliya ayaa darba ku dhuftay albaabkii baska waan iska tuuray balse waxa ka war helay anigoo isbitaalkan jiifa baska markuu iska soo tuuray ayuu daaqada dabaqa iska soo tuuray wuuna jajabay sidaas ayaan isbitaalka ku imid marka dadka ay iimaanay arintaas ay ku qoslayeen ee wax kala ma jiraan asna soo qoslaya ayuu ka tagay